qoysaskan oo sheegay inay leeyihiin beer ku taalla bariga magaalada Hargeysa soona bandhigay waraaqaha sharci ee u haystaan dhulkaasi ayaa sheegay in maayirka Hargeysa Cabdiraxmaan Soltelco uu dhulkooda madaxweyne bixi ugu sheegay dhul danguuda uuna siiyay ciidamada asluubta waxaana arrintaasi ku tilmaameen mid sharci darro ah oo dhulkooda lagaga qaadayo waxa weeyaan dib ay nagu hayso dawladda hoose oo lagu boobayo dadkii shacabka ahaa danleydii ilaa daayima soo taalay meesha maayirka Soltelco wuxuu ka jaray dadka danguud waraaqahoodii waa naga gacanta ku hayna dadkii uu danta guud ka jaray wuxuu geliyay col buu geliyay beerta waa aragtaan waxa seesaya ciidan awood baa lagu seesaya dawladdu waxay dawlad ku tahay shacabkeeda shacabkuna wuxuu shacab ku yahay dawladdiisa haddii la isxishmeyn waayo dee waxa imanaysa meeshii dhib iyo xumaan baa imanaysa ma doonayna annagu dhib iyo xumaan ma horseedayno dawladdu danguud naguma leh Soltelco uu goostay sharcigiisa iyo waraaqiisa waa naga gacanta ku hayna marka dhibtan meesha taalla iyo ciidankan la geliyay hana laga dulqaado waxaan u sheegayaa dadweynaha dawladda mid sare iyo mid hoose inta madaxweynuhu ugu sareeyo in dhulboobna lagu hayo oo beerta danteedii good la goostay iyadoo 30 baloog hore looga goostay maxaan ku dhahdaa 4 baloog afartii soo haray ee dhaxalka ahaa ee 100 qofood lahaayeenna oo xoog lagu seesanayo oo naan raalli ka ahayn oo naloo iman oo waxna laga weydiin oo xoogna lagu isticmaalayo oo madaxweynuhu deeqdiisu waan filayay inuu khiyaamo nagu qaado anagu waanu ku soo dhaweynay 100 boodood baa u rusheeyay meeshaas waxaan filayaa inay madaxweyne marka leed xarigaan ka goynayaayo waa maxaan ku dhahdaa waa la igu soo dhaweynaya halka lafteeda khiyaamaaba naga soo baydhay baan filayaa madaxweynaha hadda lafteeda maalintii horeysay hadaan iska joojin lahayn taasba noomay timaadeen imakana dilka iyo dhibta iyo waxa halka ka soo socda madaxweynaha ka mas'uula maayarku u dirtay oo shaqada u igmaday uu yiri dhulka dee laba dawladoodna looma sheegin waxaana la yiri dawladda hoose idinka goosanaysa danta guud imakana dawlad kale oo ka sarreysa idinka goosanaysa danta guud taasina waa xoog ma yeelayno ma ogolin waana la boobay xoog baa naloo sheeganaya kama yeelayno dumarkii caruurta ma yeelaynin siyaad barre wadada uu nadhex mariyay danta guud ee berbera ku socota nagamu qaadin dhulka wuu noo celiyay beer walba intii hormarisay lacagta dadkiina mas'uuliyiinta ah ee madaxweynaha iyo aan la hadlayo madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha waxa tihiin raggii maartay markaynu halgamayna hor socday waxa tihiin raggii lahaa is xoreeya kii aan lahaydeen iska xoreeya hadda shicibkii uga liidataan idinku waa nasiib darro hablaha ooyaya iyo maatida ooyaysa iyo mulkii dadka iibsaday ee meesha ka dhawaaqaya isaga dhibaatada u geystay waxaanu ku leenahay madaxweyne marna wuu sharciyay marna wuu nagu qabsaday oo waa kaamka ciidankii iyo dhagaxna dul dhigay waxaanu ku dacwo kaaga nahay madaxweyne haddii aadna dhageysanayso oo aad madaxweynihii tahay waxaanu ku leenahay dhibaatada dadkaas ka dulqaad dawladda hoose dul dhigateed u igmatay talba meel bay nagu tuureen imika dhowr bilood baanu isla wareegelisanayna waana lagu xiray dhibaatana loo geystay mudana madaxweyne naga soo gaad waad arkaysaa dhibaatadana haysata waad arkaysaa nimanka qoriyaa sita ayaa meeshii gacanta ku haya annaguna inaan dhibaato u geysano waa askartayadii waa inamadayadii inaanu dhibna ma doonayno naga soo kala gaadh adaana hawshan wada haddaanad hawsha adigu wadin oonad adigu soo amarsiinin mabay timaadeen ka aadiratay ayaa ku keenay adigana dhibta iyaga ku soo jiidaya madaxweyne haddaad dadka soo kala gaadh oo dhibaatada naga soo gaadhna haysata halkan iga dambeysay ee muranku uu ka taagan yahay waa goobta lagu qabtay munaasabadda dhagax dhiga wadada berbera corridor oo ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland dhagax dhigaasi waxaana dadkii deganaa oo cadeymaha la wadaagay telefishinka home cable ay ku lahaayeen ay sheegeen in dawladda hoose ee Hargeysa ay sheegtay in goobtani ay tahay goob danguuda isla markaasna ay siisay ciidamada asluubta Soomaaliland mas'uuliyiinta dawladda hoose ee laga cabanayo dhinacooda isku daynay in arintan aan wax ka weydiino noomay suurtagelin xasan Suleymaan Harun Xasan Galayd wararka home cable